duhur wanaagsan dhageystayaal halkani waa idaacadda kulmiye wararka duhurnimo ee aan maanta idin haynana waxa ugu waaweyn wasaaraha Soomaaliya oo maanta tababar u furay gudiyada doorashooyinka qaranka qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo soo dhaweeyay jadwalka cusub ee doorashooyinka Soomaaliya taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir oo soo bandhigay hub iyo raggii watay oo la sheegay in ay dhac ka geysanayeen xaafado ka tirsan gobolka Banaadir koox hubaysan oo imaam masjid iyo walaalkiis ku dilay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom oo ka digay khatar amni oo al-shabaab ay ku sii hayso gudaha Soomaaliya Turkiga oo ku dhawaaqay in uu ka qayb qaadan doono dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo Daesh kooxaha argagixisada oo la sheegay in sanadkiiba ay balaayiin dollar ka faa'iidaan wadamada ay ka dagaalamaan booliiska dalka Kenya oo xiray 6 qof oo calanka Soomaaliya ka taagay xeebta magaalada Mombasa ee dalka Kenya Mareykanka oo codsaday in la joojiyo dagaalka Itoobiya ka socda iyo tobaneeyo ruux oo kulayl dartiis ugu geeriyooday dalka Canada Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg Play Store-ka markale duhur wanaagsan dhageystayaal intii aad dhageysateen waxay ahaayeen qodobadii wararka duhur ee KNN ugu waaweynaa waa duhurnimo Arbacada taariikhdu ay ku astaysan tahay 3 bisha June sanadka 2021 anigoo Firdawsi Maxamuud Sahal iyo Cali Mahad Cabdisalaan ayaa duhurkan soo jeedinayna Axmed Maxamed Ibrahim ayaa wararka KNN isku soo dibiriday u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta tababar u furay gudiyada doorashooyinka qaranka gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa maanta loo bilaabay tababar ku aadan howlaha doorashada iyo sida loo fulinayo tababarkan ayaa yimid ka gadaal markii la shaaciyay maalinnimadii shalay ahayd jadwalka howlaha doorashada iyo qabashada doorashada guddoonada labada aqal iyo midka madaxweynaha Soomaaliya gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan oo toddobaad ka hor uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xubnaha ka mid ah waxa la xareeyay maalmo ka hor si ay u guda galaan howlaha doorashada Soomaaliya tababarkan oo qaadanaya 30 bishan oo maanta ah ilaa 5 bisha July ayaa marka la soo xiro waxa la guda gelayaa qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad jadwalka doorashada ee shalay madaxda ay soo saareen ayaa howlihiisu waxa ay socon doonaan ilaa iyo 3 bilood halka bisha afraad oo ah bisha Oktoobarna ay dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweeyeen jadwalka cusub ee doorashada Soomaaliya wariyahana Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa aragtiyadooda soo ururiyay shacabka magaalada Muqdisho qaarkood oo ka hadlaya sida ay u arkaan arintaas jadwalka doorashadu hadii sideeda loo fuliyo oo fiican yahay laakiin waxaan leeyahay anigu dhawaqa aan maartay wax noo dhisayn oo dhiilada leh laga joojiyo ayaan leeyahay waxa waaye sideeda waxaanu hal dhawaq oo maartay oo dhiilo wata ay u dhimanayaan marka waxaan leeyahay dhawaqyada oo dhiilada leh oo wax dumi kara haddii laga dhowro natiijo ayaa laga gaarayaa isla waa lagu qaban karaa waayo wax walba waxay loo baahan yahay qof walba waxay ballan qaado inay fuliso ayaa loo baahan yahay heshiiskana haddii la gaaro waa la gaaray kaliya maahan wuxuu u baahan yahay fulin marka waxaan rajaynayaa inay madaxdu ay ballan qaadyada iyo waxa ay ballan qaadeen inay ka soo bixi doonaan ummaduna wax weyn ay ka sugayso waxaana intaas ku darayaa inay shacbiga iyo qarannimada ay u hiiliyaan oo ay meel iska dhigaan danaha gaarka ah oo in badan dib noo dhigay oo dareemayno inay dib noo dhigeen waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ha u tanansuleen danahooda gaarkaana dib ha u dhigeen balaayadana mar walba sida lagu baaji karo
in beledkaanu oo magaalada waddankaanu oo qalqaldambo oo siyaasado oo galo sida lagu baaji karo ha lagu baajiyo ayaan leeyahay hana laga dhowro hadallada aan wax dhisayn saasaan leeyahay shirka shalayto laga hadlay anigu waxaan u malaynayaa inay shirkaasi yahay iska cimri dheer oo wax shirahoo doorashadan maalinba la leeyahay jadwal baa la soo saaraya iminka intii aynu muddo ah waxaynu maqlayno maalin walba jadwal baa la soo saaraa waxaan u malaynayaa jadwaladani inay yihiin wax iska cimri dheer ahoo kala meeraysa ah wax niyuu soo wanaagsan aan laga soo saarayn waayo dadka marba waxbaa lagu qancinaya haddana wixii baa la bedelaya haddana waxbaa lagu qancinaya haddana wixii baa la bedelaya waxaa fiican in hal mar go'aan la gaadho laakiinse waxaan waa ila meeraysaan u malaynaya anigu ra'yigayga inay tahay ee 2 sano la dhammaystirayo horta gobolka Gedo Soomaaliya la mid tahay meel ka gooniya maaha haddii hadda dad gooniyi doonayaan inay gooni u saaraan gobolka waxay ka mid tahay Soomaaliya ka mid tahay sida doorashadeedu noqoto u noqonaysaa guddidan laftideedu waxa weeye inay khaldantaan u qabaa khalad gabigeedaba loo sameeyay waayo sida gobolada kale looga qabto in looga qabtaan ugu jecel iyada maxaa gooni uga saaray dadka marka waxa laga yaabaa guddidaasi inaan waxa la ka keenin aan dhici karta sidaan u malaynayo isal wasaaraha waxaan ugu baaqayaa si xaq ah oo islaamnimo ah in dadka ugu shaqeeyo anigu waxaan u malaynayaa iminka inaanu si cadaalad u shaqeynayno markii hore waxaa la mooday ra'iisul wasaaruhu inuu cadaalad u shaqeynayo laakiin hadda gadaala laga joogaa cadaaladna uma shaqeynayo inuu ra'iisul wasaaruhu si daacada oo xor iyo xalaal doorashadana u qabto nagana soo gabagabeeyo annagana waa nagu dheeraatay taanu nahay suuqleyda suuq waa aragtaa bando waa saaran hadday wax dhaqaaqi lahaayeen waxba kala dhaqaaqi lahaa marka naga soo gabagabeeyo waxaan ugu baaqi lahaa inuu si soo kooban naga soo gabagabeeyo oo 5 bilood iyo 6 bilood uu leeyahay uu ka soo hormariyo arrinta Soomaaliyeed maanta u taalo waa aad iyo aad macnaha oo xasaasi u ah dadnimada iyo midnimada wax walba midnimada ka weyn haddana Maxamed Xuseen Roble shaqada u taalo waa shaqo aad iyo aad u weyn qof walba ahayd ra'iisul wasaaraha wuxuu fiiray wuxuu qaban karaa wuxuu suubi karaa meel wax ma geey kariyo horta midna Soomaaliyeed taas ka dhaafto wasaaraha nin wax qaadi karo wax geey karo waaya qofka sideedan baa dii macnaha oo dhinaca sharci aan lagu baran ee macnaha la dicibsado laga fiicay nin namadoonana waa yahay waana u muuqayaa mid kale oo hadda ma taalo 25 Juulaay ee aqalka la doorto lagu xijiyay baarlamaanka hadda lagu xijiyay 2 bilood kadib madaxweynaha lagu xijiyay intaas oo wasaare ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay waa midnimada Soomaaliyeed wax macnaha laga hurdi karo oo laga seexan karo ma aniga dadku ku soo kayo isha ku hayay wax naqayaan qof walba sidoo ku haysaa mid kale ku diray waxa waaye nabarka oo wadnaha ku yaal oo la yaabay oo dadka ka maaji waa gobolka Gedo heer Gedo dad sharaf leh oo magac leh ahayd heer Gedo waxay ahayd dadka midnimada Soomaaliyeed dad laga yaqaan oo aqoon-yahaneen oo wax barto jaamiciin oo wax dad la yaqaan ahayd maanta ma Soomaaliyiin inay gobolka Gedo wadna nabar ku yaal ee naqdaan ee wax walba oo macnaha la qabalahay gobolka Gedo macnaha wax walba fashalay in la yiraahdo taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay hub iyo raggii watay oo la sheegay inay dhac ka geysanayeen xaafado ka tirsan gobolka Banaadir Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya kadib warbaahinta kulmiye oo bahaysay shalay dhibaatooyinka shacabka ay ku qabaan rag habeen iyo maalin dhac ka geysta qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana uu sababay dhacaasi in xitaa la isku galo gudaha masaajidada iyo suuqyada laga adeegto ay arintaasi kadib waxa xalay howlgal ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliya ciidanka ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen 14 ruux oo ku hubeysneed qoriga AK47 isla markaana qaybtooda ay ku libisnaayeen dareeska militariga Soomaaliya rag la soo qabtay oo lagu xiray xarunta dambe baarista ee CID-da ayaa 7 ka mid ah laga soo qabtay degmada Kaaraan ee gobolkan Banaadir gaar ahaan xaafadda Jamhuuriya iyo xaafadaha kale ee ku teedsan kusimaha afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sidan sheegay bulshada gobolka Banaadir iyo booliska oo wada shaqeynaya ayaa iska kaashaday ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud oo ah ciidanka u xilsaaran sugidda ammaanka iyo ilaalinta hantida shacabka Soomaaliyeed ayaa caawa ka sameeyay howlgal ballaaran oo lahaa bartilmaameedyo gaar ah howlgalkaas oo uu saameeyay degmooyinka kala duwan ee ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka kala ah Kaaraan Yaaqshiid Hiliwa Holwadaag Wadajir Dharkeynle iyo Hodan intii ay ku guda jireen ciidanka booliska Soomaaliyeed howlgaladooda kala duwanaa
ay ku baacsanayeen kooxaha qowlaysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed baryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliiska militariga iyo cid kasta oo leh darees gaar ah tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK47ka bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small armiga sida mindooyinka iyo wixii la mid ah bulshada gobolka Banaadir oo soo report gareeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed baryahan ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir saldhigyada kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir ayaa waxa u sahlanaatay caawa in tuugadii ayadoon dhiig daadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dembiyada haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahad celinayno riboodaadkii iyo sida ay noo la wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir saldhigyadooda waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qowlaysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow ama saldhigyada si looga gacan siiyo gacan ku dhigida iyo badbaadada hantidooda iyo naftoodaba inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa dhaqan ka noqday dhaca loo geysto dadka shacabka arintaasi dhowr jeer ee hore ayaa cabasho badan laga muujiyay koox hubaysan ayaa imaam masjid iyo walaalkiis waxa ay ku dileen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Hanad Maxamed Nuur Karaama ayaa soo jeedinaya faahfaahinta wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa soo warinaya in koox hubaysan ay xalay toogasho ku dishay imaam masjid iyo walaalkiis Macalin Cali Bashiir Xasan oo muddo 22 sano ah muadin iyo imaam ka ahaa masjid ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyo walaalkiis Cabdullaahi Bashiir Xasan ayaa lagu toogtay duleedka magaalada Baydhabo marxuum Macalin Cali ayaa maalmo ka hor ka soo laabtay magaalada Boosaaso lamana oga sababta loo dilay waxa uu booqasho ugu yimid ehelkiisa oo halkaas deganaa sidoo kale lama oga sababta loo dilay walaalkiis waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan dilka labadan qof ee walaalaha ah ilaa hadda hay'adaha ammaanka maamulka Koonfur Galbeed kama aysan hadlin dilkan oo cabsi badan ku abuuray dadka deegaanka Macalin Cali Bashiir ayaa imaam ka ahaa masjidka Al-Nabawi oo ku yaala magaalada Boosaaso wax uu caan ka ahaa deegaanada maamulka Puntland inta badan falka noocan oo kale ah ayaa ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa ka digay khatar amni ee Al-Shabaab oo ku sii baahaysa gudaha dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa inoo faahfaahinaya taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika Stephen Townsend ayaa sheegay inay jiraan hanjabaadyo xoogan oo lid ku ah ammaanka gudaha Mareykanka oo ka imaanaya dhinaca Soomaaliya kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee saldhigyadooda Soomaaliya waqti hore oo sanadkan ah Stephen Townsend oo ka hadlayay xarunta macadka daraasaadka istiraatiijiyadda ee Washington ayaa sheegay inaan la dafiri karin in ka bixitaankoodii Soomaaliya ay keentay dib u dhac dhinaca amniga Soomaaliya waxa hadda ka soo socda Soomaaliya waa amni darro khatar ku ah wadamada dariska iyo danaha Mareykanka ayuu yiri Stephen Townsend Stephen ayaa shaaca ka qaaday inay la shaqeyn doonaan xulafadooda Afrika si looga hortago amni darrada ka soo socota Soomaaliya Al-Shabaab waxay sameeyeen dhowr weerar ka bixitaankeenii kadib waxay taasina tusaysaa inay jirto khatar amni oo ku soo foodlay wadamada saaxiibada aanu nahay ee Afrika Stephen Townsend taliyaha Africom waxa uu xusay inay suurtagal noqon karto in wasaaradda difaaca Mareykanka ee dib u eegis ku sameyso suurtagalnimada inay dalban karaan ciidamo dheeri ah waxa adag anagoo ka maqan Soomaaliya inaan tababar siino ciidamada militariga amba la tashiyo si aan uga taageerno joojinta hanjabaadaha ka imaanaya Al-Shabaab ayuu hadalkiisa sii raaciyay Stephen dawladda Mareykanka ayaa ka fikiraysa sidii ay dib ugu soo celin lahayd Soomaaliya ciidamadeedii iyadoo meesha laga saaray amarkii uu bixiyay madaxweynihii Biden ka horeeyay Trump ee ciidamada Mareykanka looga saaray Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay ka qayb qaadan doonto dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda Daesh
cabdisataar xaaji cali ayaa soo jeedinaya. sida uu sheegay wargeyska Daily Sabah, xukuumadda dalka Turkiga ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay si toos ah uga qayb qaadan doonaan la dagaalanka waxay dunidu u taqaano argagixisada caalamiga ah. war ka soo baxay madaxtooyada dalka Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in Ankara ay haatan u diyaar garoobayso in si buuxda ay u dul istaagi doonto dagaalada ay wajahayaan dalalka ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya. wadamada Turkiga uu carabaabay in si toos ah ay howlgal military uga fulin doonaan ayaa waxaa ka mid ah dalalka Liibiya, Suuriya iyo Soomaaliya. waxaase jirta in ciidamada dalka Turkiga ay hore uga dagaalameen dalalka Suuriya iyo Liibiya, laakiin waxaa xusid mudan in Turkiga uusan howlgal military oo toos ah ku qaadin kooxaha ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo Daesh. dhanka kale ayaa dawladda Turkiga waxay sheegaysaa in gacanka waqooyiga Afrika, bariga Afrika iyo galbeedka badda Mediterranean-ka ay ka samayn doonaan goob dagaalka ka caagan, dagaalkaana ay iyagu qaadi doonaan mas'uuliyadiisa. war ka soo baxay madaxtooyada dalka Turkiga ayaa waxaa lagu yiri Soomaaliya ayaa ah dalka kaliya ee caalamka ay si weyn u dayaceen dhibaatooyinka amni, sidaas darteed aanay xukuumadda Ankara sii daawan doonin shacabkii dalka Soomaaliyeed. Turkiga ayaa wuxuu safka hore uga jiraa dalalka sida weyn u taageera dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay ay wax badan ka bedeshay Turkiga, waxaana muuqanaysa in isbedel uu ka muuqdo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. kooxaha argagixisada ah ayaa la sheegay in sanadkiiba ay balaayiin dollar ka faa'iidaan wadamada ay ka dagaalamaan. cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan ayaa warkaana inoo faahfaahinaya. sida uu daabacay wargeyska la yiraahdo GT, kooxaha ka dagaalama qaaradda Afrika sida Al-Qaacida iyo kuwa la midka ah ayaa dhaqaalihii ugu badnaa oo gaaraya balaayiin dollar waxa ay ka heleen qaaradda Afrika sanadihii ugu dambeeyay. lacagta ayaa sare u sii kacday oo keliya markii kooxaha islaamiyiinta si gaar ah kooxda isku magacowday dawladda islaamiga ah ee xiriirka la leh sida la sheego ururada caalamiga ah ee dhinaca diinta markaasi ay weeraro xoog leh ku qaaday dalka Mozambique. waxaana la sheegay sida wargeyskan uu daabacayo in kooxdaasi dhaqaale badan ay la wareegtay. shirkadda Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee loo yaqaano Titan Total ayaa ku dhawaaqday in qasab ay ku bixisay mashruuc gaas dabiici ah oo dhaqaalihiisu uu gaarayo 20 bilyan oo dollar waqooyiga Mozambique bishii Abriil sanadkan aan ku jirno 2021, iyada oo sababtuna ay tahay in laga hortago kacdoonka markaas ee la xiriira kooxda isku magacowday dawladda islaamiga ah. waxaana la sheegay in dhaqaalahaasi qaar ka mid ah uu gacanta u galay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama dalka Mozambique. dhaqaalaha ay heleen kooxahan sanadihii ugu dambeeyay ayaa lagu qiyaasayaa in ka badan 15.5 bilyan oo dollar. lacagtaas oo markaasi gacanta u gashay dagaalamayaashu tan iyo sanadkii 2016, waxaana la tilmaamayaa in ay tahay sababaha keenay in awoodooda ay kor u sii kacdo, isla markaana ay khalkhal amni oo xoog leh ay ka abuuraan dalalka ay ka dagaalamayaan. dakhliga ugu badan waxa uu ka soo galaa wadamada Nigeria, Burkina Faso, Mali, Mozambique, Kenya iyo Soomaaliya iyo ilo kale oo aan la magacaabin, ayuu yiri wargeyska warbixintan daabacay. waxaana lagu sheegay sababta in dalalkaasi ay si firfircoon uga howlgalaan. wadamada ay dagaalamayaashani ka howlgalaan ayaa waxaa la sheegay in ay yihiin kuwa musuqmaasuqu u daashiday, taasina ay u suurtagelisay in dagaalamayaashu markaasi ay milo badan oo ka tirsan dalalkaasi ay gacanta ku dhigaan. waxaana dalalkani haatan ay wajahayaan duulaano ka imaanaya dagaalamayaasha ka aragti duwan dawladaha halkaasi ka talinaya ama dawladaha intooda badan ka jira qaaradda Afrika. nasiib darada jirta ayaa ah in qaar ka mid ah dalalkani uu si weyn musuqmaasuqa u daashiday, waana sababta keentay in ilo badan oo dhaqaale oo dawladahaasi ay ka faa'iidaysan lahaayeen albaabada loo laabo, ayuu yiri wargeysku. tusaale waxa uu soo qaatay in dagaalamayaasha Boko Haram 2017 ay albaabada u laabeen mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ugu waaweyn ee dalka Nigeria, shirkadaas oo laga leeyahay dalka Canada sida wargeysku u daabacay.
wargeyska waxa uu xusay in dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama gudaha soomaaliya ay ka mid yihiin ururada inta badan hela malaayiin dollar sanadkiiba waxaana xitaa uu sheegay wargeyskan in dhaqaalaha al-shabaab ee ka soo gala dhinaca shacabka uu marar badan ka badan yahay midka ka soo gala xukuumadda soomaaliya dhinaca dadweynaha amaba canshuurta ay qaado dowladda soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa marba marka ka dambeeya kusii kordhayey qaaradda afrika kooxaha jihaadoonka ah ayuu yidhi wargeeska midaas oo ay suurtagal tahay buu yidhi in ugu dambayntii dalalkaasi qaar ka mid ay gacanta ku dhigaan meelaha ay sida weyn uga howlgalaan amaba ay uga dagaalamaan waxaa ka mid a dalalka nigeria burkina faso maali iyo soomaaliya oo la sheego in meelo badan ay maamulaan. mahadsanid cabdiwahaab aadan. booliska dalka kenya ayaa waxa ay xireen 6 qof oo ay ku eedeeyeen in ay calanka soomaaliya ka taageen xeebta magaalada mombasa ee dalka kenya. farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya. booliiska magaalada mombasa ayaa bilaabay baaritaanka 6 qof oo ay sheegeen inay calanka soomaaliya ka taageen xeebta mombasa ayna dabaaldeg ka sameeyeen. booliiska ayaa tilmaamay inay baarayaan suurtagalnimada in arrintaasi ay argagixisada xiriir la leedahay. dadkan la xiray ayay booliiska magacyadu ku sheegeen ridmaan isaaq, jamaal cabdi, maxamed barre, cabdimaalig nuur, cabdikaafi sheekh iyo saad ibraahim salaad. booliiska ma aysan caddaynin jinsiyadaha dadkan. tuhmanayaashan ayaa taagay calanka soomaaliya waxayna qaadayeen heeso farxadeed oo soomaali ah ayuu yidhi saddex xidigle geedhan uwamba markii kooxdan la hor keenay maxkamad ku taala magaalada mombasa ee dalka kenya. garsooraha maxkamadda ayaa sheegay inay baarayaan dembiga 6daasi qof hadduu noqon karo mid argagixisada la xidhiidha. baariyaasha ayaa doonaya inay soo ogaadaan sababta ay kooxdaani calanka shisheeye ugu taageen dalka kenya iyo sababta ay 6daasi qof u doorteen inay dabaaldegooda u aadaan xeebta dadweynaha dhammaadka isbuuca. waxaa la xaqiijin doonaa kooxdaani 6 qof ka kooban meelaha laga diiwaangeliyey. sidoo kale booliiska ayaa sheegay in 6 qof 4 ka mid ah keliya ay wataan dokumentari sax ah. dadkan ayaa tilmaamay muddo 15 maalmood in xabsiga lagu sii hayn doono ilaa baaritaankooda uu ka soo dhammaado. halka aad warkaasi duhur ka dhegaysanaysiina dhegaystayaal waa KNN. in ka badan 10 qof ayaa kulayl dartiis waxa ay ugu geeriyoodeen magaalooyin ku yaala dalka Canada. mas-uuliyiinta dowladda Canada ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 15 qof ay kulayl dartiis ugu geeriyoodeen magaalada Vancouver kadib markii cimiladu ay aad u kululaatay gudaha dalka Canada. ilaa jimcihii waxaa la diiwaan geliyay 130 qof oo kulaylku uu qabsaday. heerka kulaylka dalka Canada ayaa gaaray meelaha qaar 50 digrii taasoo keentay in dawladdu ay amarto in dadku guryahooda ay ku nagaadaan. sidoo kale gobollo ku yaala Mareykanka ayaa laga dareemayaa in heerkulku uu sare u kacay inkastoo khasaare nafeed aan la soo warinin. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay codsatay in la joojiyo dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda dalka Itoobiya iyo kooxda hubaysan ee TPLF oo ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya inay joojiyaan dagaalkaasi. afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dhinac ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan si xal looga gaaro colaadda ka taagan dalkaasi. sanadka wasargaalkan u hadlay Mareykanka waxa uu ugu baaqay dagaalyahanada jabhadda TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya inay wadooyinka u furaan gargaarka si loogu gurmado dadka dhibaataysan. dhanka kale afayeenka jabhadda TPLF Katejo Reda ayaa sheegay in dagaalku ay sii wadayaan tan iyo inta ay gobolkooda maamulkiisa la wareegayaan. warkii duhurnimo oo dhageystayaal idinkaga imaanayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa naga intaa duhurka.